waxaan qaadanaynaa waxa la dhahay linki sidiisa horta waxaa loo isticmaalaa mar alaala markii aad rabto qofka isticmaalaha website-kaaga oo soo booqanayo website-kaaga mar alaali iyo markii aad rabto inaad meel aad ka wado aad geyso meel kale markaas haddii aad sidaas inaad samayso aad rabto waxaa la isticmaalaa linki. soo marka link sida loo qoraa linki waxaa loo qoraa waxaa la xisaa xarafkaas tag halaha kale macnaha tag waa qori karaa laakiin Visual Studio isticmaalaya marka iyada iyo fududeynayso ayaa la geliya halaha kalena asiga ay qabanayo sida ujeedin halahan dhan qoro ay iga rabeen balse waxaan dhahay kaliya kadibna waxaa la enter halaha kale waxay qoraa Visual Studio Code haddii aadan macnaha image ay kugu jiro ama Visual Studio Code aad xiisan aad isticmaalayso qaabkaana qoraysaa oo iyaga dhan sidaas ayaa qoraysaa haddii aadan Visual haysato waa kaasa waxaan ku dhigaa Visual Studio la soo deg waa kana ay tag kan waa linki okay linkigan hadda waa linki balse waa linki laakiin linkiga wuxuu u baahan yahay information ambi kala warbixin linkiga macnaha wuxuu noo ogolaanayaa inaan userka meel asigoo joogo inaan meel kale aan keeno si aan ugu sheegno userka meesha uu aan gelayn haddii uu linkigan riixo waxaan u baahanahay informationka inaan inta aan gelino meesha uu aadi lahayo okay waxaan rabaa horta informationka meesha uu aadi lahayo inaan geliyo waxaa leeyahay head kadib waxaa leeyahay forward slash kadib waxaa leeyahay www halahan waxaan qoray waa website-ka aan rabno magaciisa www.google.com waxaan rabnaa haddii linkigan lagu dhufto userka website-keena joogo waxaan rabnaa in laga qaado website-keena kadibna la geeyo Google. okay intaa waxaa ku qorayaa go to Google waxa la leeyahay waxa rabtaa inta ku qori kartaa muhiim ma ahan waxa muhiim kaliya meesha aad rabto userka inuu aado inaad u sheegtid kan waa external link soo internal oo jira hadda waa userka website-keena laga qaado website kale oo anaga aan sameeyna loo qaado marka kan waa external link marka save ayaan dhahaa waa isla arkeena waa kana oo soo furaya okay sida ujeedin waa kana oo soo kacay waa kana go to Google kaasoo Google-ka aad qoraalka muhiim ma ahan balse markii aad falaarta kurgeeyo sida ujeedin waxay noqonaysaa gacan oo far leh far taagan leh haddii aan ku dhufto hadda waxaa nala geenayaa website-keena ayaa nagala qaadaa kadibna wuxuu aadayaa linkiga wuxuu nageeyaa Google sida ujeedin waa kana Google teena la keenay Google ayaa nala keenay oo website-keena waa kasoo baxay waxaa jira markaa property kale kaasoo haddii aadan rabin markii linkigan lagu dhufto oo linkigana oo yahay website kale oo banaanka website-kaaga ahaan waxaa jiro property kaasoo la target waxaa leedahay blank kaasoo markii linkigan lagu dhufto website-kan waxaa furtaa tab kale website-kan ha jooga laakiin tab kale iyo fur tusaale hadda diyan dib ugu noqono waa kana website-kan waa kana haddii aan ku dhufto website-kan ma laga baxayo sida ujeedin website-kan uu jooga laakiin Google maxaa lagu fur tab cusub amba browser kale cusub okay haddii aad qaabkaas rabto waa sameyn kartaa haddii aad rabin qaabka hore waa iska bixi kartaa targetkan asiga intaas ayaa loo isticmaalaa okay qoraalka asiga muhiim ahaan haddii aad rabto sidan xataa waa dhigi kartaa annagu hadda sidaan dhahno oo qoraal macno lahayn aan u yeelnay isla sidii hadda refresh haddii aan dhaho waa kaasaa qoraalkii waaye laakiin haddii aad ku dhufto wuxuu nageynaa isla meeshii wuxuu nageynaa Google sida ujeedin wuxuu nageynaa isla meeshii soo qoraalkaas muhiim ah qoraalkaas kaliya waxaa loogu talagalay qoraalka intii kaliya waxaa loogu talagalay
qofka userka oo website-kaaga isticmaalaya inuu fahmo. Linkigan adiga ayaa halahaas u qabanaysid. Sidoo kale linkiga hadda sidaa ujeedin qoraal ayaan wax ka dhignay refresh shadow kana save dhaha sababta isku bedel save ma dhihin. Okay, sidaa ujeedin hadda waa qoraal, balse waxaa isticmaali kartaa sawir aba wax alaaliyo waxaa rabtaa meesha geli kartaa. So inta waxaan gelinaynaa image ka horta. Image muxuu haddii aan sawirna rabno inaan website-keena soo muuqno waxaan qori jirnay image tag. kadib markii image tag aan qorno source-ga waxa waaye sawirkeena meesha aan ka siinayna. Altarkan waxa waaye haddii sawirkan la waayo qoraalkan soo bandhig. So image waxaa leeyahay recently waxaan banaanka yeelan.png waa kaasa sawirkaas soo bandhig website ku soo bandhig. haddii oo sawirka oo la waayana waxaa soo bandhigtaa sawir qoraalka fiican oo qori karnaa balse aad sawir la iska leeyahay. kadib refresh aad sida ujeedin waa kana sawirkan waxaa rabaa haddii aan ku dhufano tusaale loogada Google oo kala soo qaadanayna si aan ugu dhigniyo qofka isticmaala website-kan si uu fahmo. kadibna go to Google hadda laakiin loogama hayso tusaale sawirkan oo kala iska soo qaadanay u qaadanay loogada Google tahay. waxaan sawirkan haddii qofta oo ku dhufto qofka isticmaala website-kan in Google la geeyo sidee taas ku dhici kartaa? waxay ku dhici kartaa waxaan qaadayaa image-kan qoraalkan iska tirtirayaa. Okay, waa tirtiray image-kan ayaan qaadayaa asiga calaamadeystay. Okay, cut ayaan leeyahay. Okay, waa kaasa cut ayaa dhaha. cut markii aan dhaha kadib waxaan gelinayaa qaybtan gudaha waa kan a tag waa open tag iyo close tag. a tag inta laga furay inta laga xiray. Okay, kan waa open tag meesha laga furay kan waa meesha laga xiray. meeshaan ka gadaala aan waxaan soo gelinayaa image-keeni gudaha. Okay, basta ku soo dhacay ambi kale tan oo kale hataa waa isticmaali kartaa. basti taas waa isticmaali kartaa. soo ani hadda keyboard-ka isticmaali. kadibna waxaa la save. kadib waxaan tagayaa website-keen refresh. sida ujeedin muxuu noqday calaamadii linkii lagu aqoonsanayo taas oo gacanta haddii aan dhag ku siiyo waxaana la geenayaa Google. Okay, sida ujeedin waa kaasa sawirka ayaa ku dhufanay. sawirka markaa ku dhufanay kadibna wuxuuna keenay Google. taasoo ahayd anaga meesha aan u dirnay taasoo ahayd haddii lagu dhufto sawirkan qofka isticmaalaha oo userkan waxaa geysaa Google. hadda Google oo kale walaalo website kalena waa ka dhigi kartaa oo haddii aad rabto Facebook oo kale Facebook page-ka oo kale YouTube-ka oo kale waxaa rabtaa linkigaas meesha soo gelinaysaa kadibna qofka waa aada. Okay, waxaan rabnaa marka hadda kan waa external linki. waxaan rabnaa internal linki wax la dhahayaa jiro. so internal linki sidaan u aragno intaan iska tirtirayaa waxaan arkaynaa internal linki. so marka waxaan u baahannahay inaan abuurno file kale abuurayna. waxaa leeyahay new file maya kan maro hatagaa file kadibna waxaa leeyahay new file. Okay, kadibna waxaa leeyahay save kaasoo filekan save garay. intee ku saveysaa waxaa leeyahay desktop-ka. magaca u bixinaysan waxaa leeyahay ka dhig about.html. Okay, kadib inta ayaa tegaya oo save as type. kadibna waxaa leeyahay waxaa ka dhigtaa all files. Okay, waxaa laga dhigaa all files. kadib waxaa leeyahay save. Okay, documentiga magaca u bixinay waa about. Okay, shortcut-keena kaasoo ahay haddii aad rabnay markiina si fudud waxaa calaamadaas shift number 1 aad riixaysaa. kadibna waxaa leedahay enter. halaan hore ayuu soo baranay marka halaan asiga ayaa ku siinayo. intaan iska indhatir oo intaan waan qaadan doonaa balse halaas kale waa soo baranay. haddii aadan fahansanin cashirkii koowaad ku noqo marka intaa ayaa imaanaya. Okay, waxaan sameynayaa linki. Okay, waxaa leeyahay haddii rabno inaan linki aan sameyn waxaa leedahay
okay linkiga waa sameynay balse linkigan wuxuu u baahan yahay meesha oo aadaya in loo sheego haddii lagu dhufto qaybtan waxa ugu qorayna macnaha waa qofkii inuu si fiican u fahmo ama aan qoraalkan qoraal alaal waxa la ka dhigi kartaa waa sidaan hore u soo aragnay waxa la yaa markaa waxaan rabaa haddii linkiga lagu dhufto inuu aado faylkan terminal dhaado kaas abroon xaraf faylka magaciisa waxa la ashiro.html xaraf faylkaas magacaasa soo qaada waxa leeyahay ashiro.html haddii lagu dhufto meesha aado si aan qofka ugu sheegno waxa linkiga haddii lagu dhufto inuu aadayo si aan ugu sharaxno si fiican inta waxa leeyahay go to taas oo aad ashiro page-kaas aad okay haddii lagu dhufto wuxuu aadayaa page-kan hala save kan ayaa isla arkeena desktop-ka noo yaala waa kana about away waa kana asigan inta ayaa soo dhigaya okay waa kana maxaa ku qoran go to ashiro haddii aad ku dhufto kana iska helo haddii aad ku dhufto wuxuu nageenayaa faylkeeni kaas oo icon okay inta ku dhufana linkiga ku dhufanaya okay linkiga waa ku dhuftay documentiga waa keena laakiin documentigan waxba kuma jiro maxaa yeelay aniga ka tirtiray waa kana everywhere si aan kan isku aragnayno asiga yahay hejban aan leeyahay waxa ku qorayna waxa leeyahay okay qorshaha ganacsiga kadib waxa image ale hal sawir soo qaadana okay image kadib waxa leeyahay a tag kadib markii faylkan la imaado back to kan waa ku qoraya ku laabo about page about page laakiin ninkii uma sheegin ilaa hadda meeshu aaday waa isla arkeena horta aan tago website-keeni hala refresh hadda waa kana kan waxa ku qoran okay hadiga marka faylkeeni kaas oo ahay faylkeeni waa kana about waa kana faylkeeni about ka ku dhufanaya about waa kana about ka daay maxaa ku sameeyay about ka atago waa kana about waa ku sameeyay halkan linki kaas oo ahay go to ashiro linki haddii lagu dhufto wuxuu keenay ashiro page-kaas ayuu keenay so waa kana ku dhufana bal page-kaas hadii uu keenay waa kaasa sida ujeedin wuxuu keenay page-kan okay waxaan rabaa linkiga inaan ku dhufto kadibna uu nagu soo celiso page-kan okay website-kii ka soo tagay okay sax waaye waxaan rabaa inuu nagu celiso page-kii haday oo hore oo ahay kan inuu nagu soo celiso waa kana haddii aad ku dhufto linki waxba ma sameeyna ma yeelay meeshu aadi lahaa uma sheegin qoraal aan ku qornay saa uu sheegno meeshu aadi lahaa waa kana ashira imaayna inta asiin ku qorayna faylka arin magaciis waa kana about.html meesha ayaa ku qoraysaa page-kaas about haddii lagu dhufto page-kaas aad save ayaa leeyahay kadib waa imaanaya haday ma shaqeynin balse hadda isla arkeena haddii aad ku dhufto meesha ayuu ugu celinaya si aad ujeedin waa kaasa meesha ugu celisho kana ku dhufanaya intuu keenaya kana ku dhufanaya intuu keenaya waxaan rajeynayaa inaad fahanteen okay kan waa iska xiraya kan keliya intaas ayaa raba inaan i tusiyo okay faylkan ayaa kusoo laabanaya halaan sidooda ayaa waxaysanaya waxaan rabaa asigan waxaa jiro kan hadda aan sharxin wuxuu ahaa internal linki kaas oo ahaa adiga website-yada adiga aad leedahay keliya inaad u tilmaamtid qofka oo website-kaas haddii uu rabo aaso ama page-kaas oo kale haddii uu rabo aaso tusaale waxaa qortay website-kaaga macnaha wuxuu noqday mid tiradiisa aad iyo aad u badan tahay tusaale bal hadda isla aragno p-tag aan dhahay waxaa dhahay lorem waxaa dhahay 1000 kaas oo 1000 eray
kun ayaa dhahay kadibna inta tagaa fiida bariga le maxay waxaan shaashada ay ka buuxaan oo draab sida ujeedin qoraalka uu badan tusaale website-keena qoraal badan oo kala ku qornay waa tusaale ka soo qabo qoraal intaas oo kala ku qornay website-keena waa kana website-keena tusaale ka soo qabo qoraal intaan oo kala ku qornay oo qofkii inta kala ayuu joogaa in waxaan rabnaa qofkii haddii asigoo inta kale uu joogo inaan waxaan rabnaa linkiga inta ugu sameeyno kaasoo kor aadee oo qofka inuu inta maanta dhan oo inta qaban falaadan oo kor u soo qaadin si aan ugu fududeeno waxaa jira asina qaab kale oo la isticmaali karo hada qoraalkan waa kana kan waa iska daba isticmaali karnaa asiga naftirkiisa okay sida sameeyno waxaa imaanaysaa paragraph meesha ku dhamaado paragraph waa kana inta ku dhamaada kadib enter ayaa leedahay hadii inta ku wararsan tahay waa ku celinaya waa kaasa lorem ayaa dhahay paragraph hoostiisa hadda sameeyna linkiga sameeyna kadib qoraalka soo gelinaa si aan wareerin okay waxa leeyahay a tag kaasoo hadii aad userka inaa mar meel qaado meel kale ay geysina rabto waxa la isticmaalaa link halaas ina fahantaa arjina maxaa leedahay kan laakiin xarki doona isticmaalina kaasoo waxaan ku soo dirinaa id waxa leedahay hashtag kaasoo top hashtag top kan waa id gadaal ayaa ka sharxina balse iska faan inta waxaan ku qorayaa go to app go to top waxaa la dhihi kartaa go to top kaasoo kor aad qofka hadii linkiga ku dhufto wuxuu aadayaa kor marka h1 waxaan siinayaa id kaasoo top waa kana id-gan id waa kana marka linkiga hadii lagu dhufto waxaa rabnaa inuu aado h1 okay save ayaa meesha ayaa tagay qoraalkii anaga bixinay halaas la joogo hadii inta ku dhufto ma arkeeno laakiin uu soo noqonayaa si aan u aragno marka horta qofka userka waa inuu wax badan u qoraa lorem aan ku dhufto qoraalka tag ayaan siinaa qoraal badan ayaa soo galay waa kana b-tag inta ku egyahay halaan kale qoraal ku jiro dhimalahan save adheena kadib waxaa tagaya website-ka marka website-ka aad tagto tusaale qoraalkan oo kala dhaxyiile waa kana linkiga kaasoo go to top hadda fiiri anigoona inta wadin oo qofka userka scroll oo sameeynan oo falaataas kor u qaadin waxaana linkiga hadii ku dhufto inuu kor tago ku dhufanaya linkiga waa kaasa tagaya kor oo website-da hadda badan casriga barnaamijkaas ay isticmaalaan hadda aan qoraalna isticmaalna laakiin iyaga icon oo falaar kor tilmaamaysa geeska amal taalo geeska amal oo ku dhufanaysa kadib kor ayaa ku keenaysa okay video intaas oo ku eegay muuqaalka like saar channel subscribe saar